bismillaahi raxmaani raxiim waxaan wanaagsan khiyaarta awdeega daawanaysa ku soo dhawaada wararkii Soomaalida kuwoodii ugu dambeeyay wadaadahan oo kale ka daawataan page-kan waa 29 bisha Afraad 2026 muqaal wareedkan tusaanu yaadu ee beedmo waxaad ku maqli doontaan macluumaad ku saabsan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo laga yaabo inay xayiraad xagga hawada ay ku soo roto maamulka Somaliland dhanka kale fila Soomaaliya ayaa dagaalkii ugu adkaa waxay kula jirtaa safiirka dhawaan Israa'iil Somaliland u soo magacawday inuu ka soo dago magaalada Hargeysa qodobkaas oo faahfaahsan intaan ku soo gudin fadal muuqaalka leega saar oo share garay waqtigu haduu noo samacno qodobo kale ayaa raaci doona intaan ku soo gudbin qodobkaas oo faahfaahsan fadal muuqaalka leega saar oo share garay hadaad YouTube naga daawanaysan muuqaalka leega ugu dadaal aynu ku bilownay saaxiibayaal dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya wararka naga soo gaaray ayaa waxay sheegayaan in maamulka Somaliland ay ku soo rogi doonto xayiraad xagga hawada taas oo lagula dagaalamaya leeyri safiirka ay Israa'iil u soo magacawday dhawaan Somaliland kaas oo laga yaabaa inuu safar xagga hawada oo uga imaado dalkiisa kuna soo gaaro maamulka Somaliland halkaas oo uu doonayo inuu ka sameeyo saldhig ciidan kulana gorgortamo baabulmandan inuu isagu ka taliyo doonaya maadaama Mareykanka iyo Yahuudda Israa'iil ay Iran uga guuleysatay marinka Hormuz ayna sheegtay in iyadu si toos u maamusho wixii ay rabtaan inay mari karaan wixii ay rabaan inay samari karin taasi bedelkeeda ayaa ra'iisul wasaaraha Yahuudda Benjamin Netanyahu wuxuu doonayaa inuu gobolada waqooyi ee Soomaaliya saldhig ka sameeyo baabulmandan halkaasi oo isagu ka taliyo Soomaaliya inuu kala jaro ayuu doonayaa dhanka kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa arintaasi si adag uga soo horjeeda wuxuu ka soo digi doonaa ladies Ethiopia oo uu joogi doonaa maalmo kadibna dhinaca Somaliland ayuu u sii gudbi doonaa dowladda federaalka waxa la arkayay diyaaradaha Turkiga oo dowladda siiyay oo maamulka Somaliland hawadiisa kore haabaya sheegana inay awood u leeyihiin halka wixii soo galay inay talaabo sharciya ay ka qaadaan soo kale dawladda Soomaaliya waxay ka soo gaadhay dalka Pakistan diyaaradaha caalamiga ee Hindiya ay kula dagaashay Pakistan kuwaas oo ayaa jiilka saddexaad oo iyagana aan caadi ahayn oo Soomaaliya uu Sacuudiga u gaday ayaa jiray iyagana sidoo kale Soomaaliya waxay sheegtay in Israa'iil ay duulaan qaawan ay ku soo qaaday ayna talaabo sharci ka qaadi doontay awood ciidan iyo mid diyaarad intaba ay uga hortagi doonto macluumaadiyada way soo tarayaan saaxiibayaal marka dagaal ayaa waxa laga yaabaa inuu Soomaaliya oo ka dhaco iyo awoodo kale oo iyaguna qarsoon alla awood leh oo ay ka mid yihiin Masar iyo Turkiga iyo wadamo kale oo iyaguna Afrika kamid oo doonaya Israa'iil inay halkaasi gabi ahaanba wax saldhiga aysan ku yeelanin maxaa soconaya adiga maxayse kula tahay ninka Israa'iil ay u soo dooratay safiirka Somaliland miyuu imaanaya mise dawladda ayaa ka awood badan doonta alla awood leh oo gabi ahaanba waa laga celinaya isaguna uu og yahay inay dawladda federaalka Soomaaliya ay ka warqabto oo uu ku xisaabtamaya laakiin inda adeeg iyo qajajac iyo ismajiir ayuu doonayaa inuu halkaasi uu ku soo galo waxyaalihi dambe saaxiibayaal ka soo cusbanaada muuqaalada kale aad ku daawan doontaan page-kan soo dhafe YouTube markasta waa mid update oo arrimaha Soomaalida oo ka hadli doona iyo bariga dhexe fadlan muuqaalka leega saar nala joog intaan kulmi doono muuqaalkan iyo muuqaal la mid ah nabaday